بسم الله الرحمن الرحيم ومالينما قميصة لحي لباتنكا بشا مارسو لبكون يلحي لباتن oo ku beegan 7 bisha Shawaal sanada 1440 Hijriya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wararka maanta qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah iyada oo dagaalka bariga dhexe uu ku dhow yahay bil ayaa mar kale ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah iyo ururka Xisbullah waxa ay wadajir u qaadeen weeraro gantaalo iyo diyaarado drones ah oo loo adeegsaday kuwaasi oo ka dhana Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe. ciidamada Iran ayaa sheegay in 24 saac la soo dhaafay ay fuliyeen 110 weerar kuwaasi oo sababay khasaare naf iyo maal isugu jira. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo xaqiijiyay inay dileen taliyihii ciidamada badda Iran kadib duqeyn ay ka fuliyeen magaalada Bandar Abbas ee dalka Iran. Israa'iil oo dhankeeda qeeratay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ciidankooda ka soo gaaray isku horimaadyo toos ah oo ay la galeen dagaalamayaasha Xisbullah iyadoo ururka reer Lubnaan uu sheegay in 600 oo weerar ay fuliyeen 24 saac ee la soo dhaafay oo kaliya. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo soo saaray digniino ku aadan dagaalka ka holcaya bariga dhexe. dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama aadan horey ugu xirnayna ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Waliid Xaaji Cabdi oo barnaamijka ila tabinaya ayaa inoogu bilaabaya wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha lagu qaaday Israa'iil. Mawlid Mahsanid Maxamed iyadoo maanta ay tahay maalintii 27aad ee dagaalka ka holcaya bariga dhexe isla markaasna ay socdaan weerar iyo weerar celis ciidamada Iran ayaa xoojiyay weerar ay ku qaadeen saldhigyada militariga iyo sidoo kale goobo xasaasi ah oo ku yaal gudaha Israa'iil. haddaba wararkii ugu dambeeyay amurahani haddii aynu eegno ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in weerarada ay ku qaadeen Israa'iil ay ku beegsadeen magaalooyinka Kiryat Haifa iyo Tel Aviv. bayaan ciidanku ay soo saareen oo laga sii daayay warbaahinta Iran ayaa lagu sheegay in weerarkan oo ahaa mowjadii 82 ee howlgalka ballanqaadka dhabta dufcadiisa afaraad ay ku beegsadeen 4 xarumood oo talis oo ay ku sheegeen cadow iyo hangarro ay ku jiraan dayuuradaha aan duuriyaha lahayn ee Mareykanka iyo Israa'iil. taliska ciidamada Iran ayaa intaasi ku daray in mowjadan ay adeegsadeen gantaalo ay kamid yihiin Khaybar Shakan, Sulfiqar, Imaad iyo Qadar oo leh madaxyo firdha oo badan. sidoo kale waxa ay sheegeen fulinta howlgaladan oo ay inay ka qayb qaateen iyaga Xisbullah iyo iska caabinta Ciraaq taasi oo muujinaysa furitaanka jiha cusub oo dagaalka oo ka dhana cadowga. ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran ee loo yaqaan IRGC ayaa waxa ay sheegeen in ay fuliyeen 110 weerar oo sawaariikh ah oo lagu beegsaday saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe iyo Israa'iil 24 saac oo kaliya. telefishinka kanaal 14 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in qaraxyo xooggan laga maqlay bartamaha Israa'iil kadib markii hawada uu ku qarxay gantaal cluster ah ama nooca xambaara bambaanooyinka firdha. taliska difaaca rayidka Israa'iil waxa uu sheegay in qasaarooyin la diiwaan geliyay kadib markii firarka gantaalada ay ku dhaceen magaalada Petah Tikva, Kafr Qasim iyo deegaano ku yaala waqooyiga daanta galbeed ee la haysto. sidoo kalena firarka qaraxyo ayaa ku dhacay 3 goobood oo ku yaala aaga Haifa ee waqooyiga Israa'iil. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ugu yaraan 6 qof ay ku dhaawacmeen maanta deegaano kadib markii sabab la xiriira firarka ka dhashay qaraxyada gantaalada Iran laga soo riday hawada kuwaasi oo ay ku dhaceen bartamaha Israa'iil taasoo sidoo kale sababtay burbur ballaaran. saacadii hore ee maanta seeriga digniinta bixiya gantaalada ayaa ka yeeray magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Israa'iil oo ay ku jiraan Qudusta la haysto, Goshdan oo ka tirsan Tel Aviv weyn iyo sidoo kale Sharon.
telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in qaraxa ka dhashay gantaal ku dhacay dhisme 4 dabaq ah oo ku yaal Tel Aviv uu sababay waxyeello weyn waxaana sidoo kale waxyeello ay soo gaartay gaadiid iyo dukaamo ganacsi oo ku yaal goobo magaalada ka mid ah warbaahinta Israa'iil ayaa waxay kaloo sheegaysaa in dabab ay ka kaceen dhowr meelood kadib markii jajabiye gantaalada Iran laga soo riday ay ku dhaceen aagagaasi isla wararkan haddii aynu ku sii socono dhanka Israa'iil wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay dileen taliyihii ciidamada badda IRGC Alreza Tangsere iyaga oo sheegay in ay dilkani uu muhiim u yahay Mareykanka isla markaasina uu ka caawinayo furitaanka marinka muhiimka ah Hormuz sidoo hadalka u dhigay Katz ayaa waxa uu sheegay in taliyahan uu si toos ah mas'uul uga ahaa miina dhigitaanka iyo xiritaanka marinka sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Alreza ayaa waxa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Bandar Abbas ee koonfurta dalka Iran warbaahinta Israa'iil ayaa iyadoo dhankeeda sheegatay in Tangsiri uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha military ee ugu saameynta badan Iran gaar ahaan dhinaca istiraatiijiyadda badda iyo hanjabaadaha xiritaanka ee marinka Hormuz halkaasi oo ay maraan qiyaastii 5 meelood meel shidaalka adduunka ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada Israa'iil sidoo kalena ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Iran oo ku aadan hadalkan ka soo yeeray wasiirka Israa'iiliga war kale oo colaadan la xiriira wakaaladda wararka Tasnim ee laga leeyahay Iran ayaa sheegtay in booliiska Isfahan waa magaalo ku taal waddankaasi ay xireen 5 qof oo lagu eedeeyay inay xog iyo sawirro ka ururinayaan gobol la beegsaday oo ku yaala magaalada Shaahin ayna u direen dhinacyo lagu tilmaamay cadow sirdoonka Iran ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay xireen 14 qof oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayaan Israa'iil iyo Mareykanka kuwaas oo lagu xiray 4 gobol oo dalka ka mid ah dhankeeda wakaaladda wararka Maahir ee Iran laga leeyahay ayaa sheegtay in nidaamyada difaaca hawada la geliyay heegan gaar ahaan bariga caasimadda kadib markii la arkay weerar cadow sida hadalka loo dhigay dhanka Mareykankana madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ayaa ugu baaqay in ay dhab ay u qaadato wadaxaajoodka waa sida uu hadalka u dhigay inta goori ay goor tahay Iran Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Iran ay codsanayso heshiis kadib guuldarro military oo culus oo gaartay waa sidoo hadalka u yiri balse ay si fagaara ah ay u sheeganayaan oo kali ah in ay ka fakarayaan soo jeedinta Mareykanka Trump ayaa intaasi ku daray in dalalka NATO ay taageero yar ay ka geysteen arrinta Iran isagoo sheegay in Mareykanku uusan waxba uga baahnayn NATO balse dhacdadan aan la iloobi karin isla wararka Mareykanka shabakadda wararka ee Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxa ay sheegaysaa in waxda gaashaandhigga ee Mareykanka ee The Pentagonku ay diyaarinayso xulashooyin military si loo gaarsiiyo waxa loogu yeeray dharbaaxadii ugu dambeysay Iran oo ay ku jirto adeegsiga ciidamada dhulka iyo duqeyn balaaran warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xaaladdu ay sare u sii kici karto haddii wadaxaajoodadu ay guul daraystaan iyo haddii marinka Hormuz oo sii xirnaado iyadoo la sheegayo in ciidamada Mareykanku ay isku diyaarinayaan qorshayaal hawlgalo dhanka dhulka oo laga fuliyo gudaha Iran si loo sigo ama gacanta loogu dhigo uraniumkii la tayeeyay ee Iran isla Mareykanka wargeyska Washington Post ayaa waxa uu sheegay in Pentagonka uu ka fiirsanayo in hub loogu talagalay dalka Ukraine loo wareejiyo bariga dhexe iyadoo dagaalku uu yaraynayo kaydka hubka ee Mareykanka isla markaasina la tixgelinayo in gantaalada difaaca hawada loo leexiyo gobolka wararka Iran haddaynu dib ugu laabano taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Iran ayaa sheegay in dagaal dhanka dhulka uu noqon doono mid qatar ku ah sida uu yiri cadowga isla markaasna ugu kici doono qasaaro weyn isagoo intaasi ku daray inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa cadowga dhammaan xuduudaha isla markaasna ay diyaar u yihiin dhammaan xaaladaha imaan kara dhanka colaadda Xisbullah iyo Israa'iil haddii aynu eegno ciidanka Israa'iil ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen in askari kale lagu dilay iska horimaad ka dhacay koonfurta dalka Lubnaan halkaasi oo weeraro ay ka socdeen taniyo 2 bishan Maarso bayaan ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in Yuri Greenberg oo 22 jir ah kana tirsanaa guutada
Golani lagu dilay dagaal ka dhacay koonfurta dalka Lubnaan. Warbaahinta rasmiga ah ee Israa'iil ayaa iyadu waxay sheegtay in askariga roondada ee Golani ay habeennimadii xalay ay dagaal ay la galeen kooxo hubeysan oo ku sugnaa deegaanka koonfurta ee dalka Lubnaan, taasi oo sababtay dhimashada Greenberg iyo dhaawaca soo gaaray askari kale. dhimashadani waxay noqonaysaa askarigii saddexaad ee Israa'iil looga dilo koonfurta Lubnaan tan iyo 2 bishan March. sidoo kalena Arbacadii waxaa la dhaawacay 3 askari oo kale iyadoo la sheegayo mid ka mid ah dhaawaciisa in uu culus yahay kadib weerar gantaalaha oo Xisbullah ay ku qaaday ciidamadaasi. cisbitaalka Rambaf ee magaalada Haifa ayaa waxa uu sheegay in ay soo gaareen askar fara badan oo qaba dhaawacyo kuwaasi oo tiradooda marka la isku daro iyaga iyo shicibka ay gaarayso ilaa iyo 200 oo qof. warbaahinta Israa'iil ayaa maanta waxay sheegtay in Xisbullah ay soo riday qiyaastii 600 oo gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn muddo 24 saac gudahooda, kuwaasi oo badankooda lagu beegsaday ciidamada Israa'iil ee ku sugan koonfurta waddanka Lubnaan. wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu eegno, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socda bariga dhexe uu sababay dhaawac culus oo ku yimid warshadaha iyo nidaamyada gaadiidka caalamka, isagoo xusay in cawaaqibka ka dhalan kara ay tahay mid adag in la saadaaliyo. isla wararka Ruushka haddii aynu eegno, madaxtooyada waddankaasi Ruushka ee loo yaqaan Kremlinka ayaa beenisay wararka sheegaya in Ruushka Iran uu siiyay diyaarado aan duuliye lahayn, warkaasina waxaa lagu tilmaamay kuwa sal iyo raad aan lahayn. warar kale oo colaadda bariga dhexe la xiriirana haddii aynu eegno, warbaahinta Axios ayaa waxa ay soo xigatay ilaa sheegaya in Pakistan, Masar iyo Turkiga ay weli ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in ay abaabulaan kulan u dhaxeeya Tehran iyo Washington. وهاجاك بل هدي أينو أجن وركا قدام بيه إمك صودا عينتين برامج كوتشرني قارهان لنكا إن حزب الله إيو إسرائيل دقال لما ياشا حزب الله إيا ور أي صو صارين waxay sheegeen in taangi ciidanka Israa'iil ay leeyihiin ay ku beegsadeen dhanka xadka Lubnaan iyo Israa'iil, waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo 12 saac la soo dhaafay Xisbullah ay sheegtay ugu yaraan 8 taangi oo nooca markaafaha inay ku beegsadeen deegaano ku yaal xadka waqooyiga Israa'iil iyo koonfurta waddankaasi Lubnaan. Xisbullah sidoo kale waxa ay sheeganayaan in weerar kale ay ku qaadeen deegaano ku yaal xadka. dhanka kale militariga Israa'iil ayaa hadda war ay soo saareen waxay sheegeen inay dileen ilaa iyo 70 kamid ah raalli ahada waa 30 kamid ah dagaalamayaasha Xisbullah, kuwaasi ay sheegeen in ay wadeen weerar ka dhan ah Israa'iil. hagaag daawadayaal, gordha waxaan u gudbaynaa falanqayn ku saabsan dagaalka galay ku dhawaad bil iyo warbixin arrintaasi ku aadan, balse qadar xaysi. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeenna. waa barnaamijkii labaad, waa barnaamijkeennii galabnimo. maanta waa khamiis, taariikhduna waa 26 bisha maarso sanadka 2026. wararkii ugu waaweynaa dagaalada ka socda bariga dhexe ayaynu barnaamijkeenna ku faahfaahinaynaa. haddaba ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa weerarada dhinacyadu ay isweydaarsadeen saacadihii lasoo dhaafay. haddaba haddaanu ka hormarno wararkii ugu dambeeyey ee soo dhacay goordhow waxay sheegayaan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay fuliyeen 110 weerar oo ay u isticmaaleen gantaalo 24 saac ee lasoo dhaafay. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen waxaynu fulinay 24 saac ee lasoo dhaafay 110 weerar oo aanu u isticmaalaynay gantaalo inagoo bartilmaameedsanay goobaha Mareykanka iyo Israa'iil ee gobolka bariga dhexe. 110 weerar oo gantaal kaliya ah, ma ku jirto daroonku, ma jirto ogaada. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa warkan soo saaray. 24 saac ee lasoo dhaafay, waa maanta xilligan ilaa shalay xilligan oo kale ilaa maanta xilligan 24 saac 110 weerar ayaa fulinay. waxaana garaacnay Mareykanka iyo Israa'iil meelaha ay ka joogaan gobolka. meeshaas waa lagu baay Soomaa, dhagaha la iska garaacay. haddaba markaas
weeraradii ugu dambeeyey oo saacad ka hor ka dhacay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil dab ayaa isqabsaday meel kasta baaritaana waxaa lagu bilaabay gantaalaha Iiraan ee soo dhacay waxay yihiin gantaalku meeshuu qabsadaba daba ka caayaba haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadan laga qoray waxay sheegaysaa Al Jazeera inuu dab ka kacay bartamaha Israa'iil kadib markii ay ku dhaceen gantaalaha Iiraan haddaba warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in dab xoog leh uu ka kacay dhowr goobood oo ka tirsan Israa'iil kadib markii gantaalaha iyo firirka sawaariikhda Iiraan ay halkaasi ku dhaceen oo ay ku habsadeen u fiirsadaya intaas waxaa lagu leeyahay meeshuu gantaalku gaaraba daba qabsanaya guriga imaaradda dhan ama sarta dhana dab qabsanaya marka ilaa hadda waxay yihiin laga yaaban yahay baaritaana ku hayna ay ku leeyihiin marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa marka waa Israa'iil hadda wixii aan ka hadalnay waxaan u gudbaynaa khaliijka waddamadii khaliijka waa dhibayn iyaguna Mareykankiina ka guurma yeelayo waa dhex degan ayagii marka halkaas la isku haystaa haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay khaliijka ka yimid laba qof ayaa ku dhimatay gudaha dalka Imaaraadka dab xoog lana wuu ka kacay Bahrain Sacuudiga iyo Kuwait waxay sheegeen inay iska caabinayaan weeraro kaga yimid dhanka Iiraan haddaba waxaa la sheegayaa dhowr dowladood oo ka tirsan khaliijka maanta Khamiisa inay la kulmeen weeraro ka yimid dhanka Iiraan oo gantaalo iyo daroonisa waxaana la sheegay sida uu ku waramay xafiiska Abu Dhabi ee dhinaca warfaafinta qaabilsan in dalka Imaaraadka ay laba qof ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib firirka gantaalaha ku soo dhacay waddo weyn oo markaa dhex marta caasimadda Abu Dhabi waddadaas ayaa waxaa la sheegay in uu ku dhacay gantaalka kadibna uu halkaa ku firiray waddo weyn oo magaalada Abu Dhabi aba la iska cuskaday baalki markaas firir laba qof aa dhimatay dhowr qof kalena way ku dhaawacmeen alle marka waxaa la yaab la meeshan fiiriyaya waxyaabaha la yaab kale aan la yaabo waxaa ka mid ah carabtu wax badan looma diro mid walba xoogaa jag laakiin meesha la garaaco oo hadda 110 weerar ay ka dhacday 24 saac la soo dhaaf oo gantaalaha meesha ku dhacaanba ay gubanayaan waliba gantaalaha kuwa jugta culus Israa'iil ayaa lagu garaacaa meelaha kala saldhigyada Mareykanka iyo waxa laga baqaa gantaaluhu in lala waayo oo ay meelo kale ku dhacaan oo carabtan iyagoo iska hurdaaya nagta laga saaro marka waxoogaa gantaalo macquula lagu ridaa xaggaas daroonisa u badan inta badan jugta looga saaraa laakiin wixii gantaal ah halkaan la keenay warkii ay soo saareen markaas Imaaraadkii oo jug badan gaarin ayaa wuxuu yiri laba naga dhimato dhowr qofna waa dhaawacmeen haddaba iyagu marka meeqay sheeganayaan aan aragno goor dhaweyd ayaa war waxaa soo saaray Israa'iiliyiin wakaaladda wararka Anadolu ee dalka Turkiga waxay leedahay 6 qof ayay sheegeen inay dhaawacmeen markii weeraro ballaaran oo sawaariiqa Iiraan ay ku qaaday bartamaha Israa'iil waxaas ka warrama waxaasoo weerar dhacay waxaasoo daba kacay waxaasoo guryo ahaa dumay waxaasoo damdamis iyo ambalaas ordaa waayaabe haye lixaa dhaawacan waa sheeka cusub waa sheeka yaablo waa arrin la yaabo waa meesha nimankaanse wax u qarsadeen waa la yaabo marka meeshaasi hawshaasu halkaasay maraysaa qodobka kale ee muhiimka ee barnaamijkaanu ku soo qaadanayno wuxuu yahay Israa'iil iyaduna waxay sheegtay inay duqaymo ka fuliyeen Hezbollah meesha joogaan Lubnaan iyo Iiraan labadaba marka weerarka Iiraan aan ku qaadnay magaalada Bandar Abbas oo ku dhow Hormuz oo ciidamada badda saraakiisheeda iyo taliskeedii waxay meesha ku yaalaan ayaan duqaynay guri 8 dabaq ka kooban ayay dhulka geliyeen marka waxay gurigaas waxa ku jiray isna sarkaal oo aan raadinayno oo ah taliyaha ciidamada badda ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan halkaas ku dilnaynayeen ninka taliyaha ayaa halka ku khaarijinay iyo rag kale oo saraakiina nimankaas waxay ahaayeen kuleeyeen nimankii Hormuz xaray laakiin hore waxa uu sheegeen Iiraaniyiintu
nin kasta ilaa 5-6 qof inay ku xigtaba oo la og yahay nin walba wuxuu diyaar u yahay inuu shiido shahaadadiisu dooranayaa mid kala imaanaya meeshii ka sii wadaya wax joogsana male marka ninkan taliyaha la dilay inkastoo hadda marka aan duubayo barnaamijka Iiraaniyiintu aanay weli ka hadlin laakiin iyaga Mareykanka iyo annaga isla fulinay leeyihiin weerarkaas ninka waa dilnay haddaba markaan idin tuso warbixinta laga qoray sheekadaas Israa'iil waxay sheegtay inay dileen si gaadma taliyahii ciidanka badda ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa maanta sheegay inay dil gaadma ku dileen taliyaha ciidamada badda ilaalada kacaanka Iiraan ninka la dhihi jiray siday leeyihiin iyagu Ali Rida Tangsiri waxaana la sheegay in weerarkaasi ay markaa isla fuliyeen Mareykanka waxaana ay sheegeen ninkan inuu ahaa dadkii ka dambeeyay arinta oo gacanta ku hayay Hormuz sheekadiisa dadka saraakiisha ay gacanta ku haya ayuu kamid ahaa oo madax u ahaa la leeyahay marka ninka hawshiisu halkaas ay maraysaa marka sheekadu marka halkaas ay joogtaa warka kale oo xiisaha leh ee barnaamijka idinku hayo wuxuu yahay Xisbullah waxay sheegeen 7 taangi inay gubeen oo ay gantaalo ku dhufteen xalay 9 maantaydii hore mid kale wax kale ilaa dhowr iyo 20 marayaan 24 saac gudahood marka waa yaabana waxa isleeyahay warnimo kan taangiyada ay gubayaan taangiyada xagee iska yaalaan nimanku waxaa leeyahay hadda warbixinta waxaan ka akhrinayaa oo aan fahmayaa nimanku meel buuro ay galeen oo wada u ah ciidanka Israa'iil marka taangiyada way soo qaadaan taangigu ilaa masaafo badan ma socon karo moogta shidaal badan oo cunaya baabuuro tareelayaal la soo saaraa tareelka marka wuxuu soo qaadayaa dhowr xabuu soo qaadaya awla bara waxa isla war waxa kan ma been sheegayeen maxay 7 taangi 10 aan gubnay waxaana maxay tahay xakii ku gubeen ilaa marka waxa macquul ah gaariga dushiisa ku gubeenaa leey gaarigii waday tareelka ayay inta gantaala la fuulaan meel ayay jugta ka siinaa marka taangigii isagoon dagaalaminba oo saas u dul saaran gaariga ayaa meesha lagu cabayaaba meesha dhagaha loo garaacaya haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay oo maanta ay sameeyeen haddaba Xisbullah waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen 7 taangi oo ka tirsan taangiyada halista badan ee la yiraahdo Merkava waxayna ku beegsadeen deegaanka la yiraahdo Al-Qandara oo ku yaala koonfurta Lubnaan haddaba waxay sheegeen in taangiyadaasu ay markaa halkaa ku beegsadeen waxayna hadda sheegayaan in 7 taangi ay hadda marayaan maanta kaliya 7 la qarabsaday marka warbixinta marka ninka wariyaha wuxuu leeyahay ninka wariyaha ka fahmay moogtahay wuxuu leeyahay marka baabuurtii ku dul gubteen oo yiri waa yaabana marka waxa leeyahay baabuur taangi ku dul gubana maxay ilaa markii daba sawirka waxaan arkay tareelayaasha waxa lagu soo qaadaa taangiyada inta badan lagu soo qaadaa ruushka xataa uu isticmaalayo wuxuu leeyahay tareeno leeyahay asaga tareeno oo la soo saaro tareenka ayaa taangiyada laga soo buuxiyaa markaas la soo ordaya haddaba qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay intaan barnaamijka ku jirnay haddaba Al Jazeera waxay leedahay Netanyahu ayaa ka hadlay dilka loo geystay taliyihii ciidamada badda ee ilaalada kacaanka Iiraan oo maanta weerar gaadmaha lagu dilay wuxuuna xaqiijiyay weerarka inay iska kaashadeen iyaga iyo Mareykanka inay iska kaashadeen ayuu cadeeyay dhanka kale waxaa la sheegayaa ciidanka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM ayaa waxay yiraahdeen weerarada aan qaadnay tiradoodu waxay hadda gaartay 10,000 oo hadaf oo weerar ayaynu ku qaadnay Iiraan ayaanu ku qaadnay 10,000 ayaan ku qaadnaa leey 10,000 oo weerar ayaa Iiraan ku qaadnay masalada iyada hawl saalan baa marka meesha Iiraan ay leedahay 24 saac 110 weerar qaadayna meesha waa la isku xisaabsanaa نقول ماشي أسو أنت سامي ليه مركا إلى هذا لكن
cid sheeganaysa inay maaragtay jabtay ma jirto laakiin nin walba ninka kale jugto ku haya Israa'iil maanta dhan way gubanaysay markaan arkay telefishinada daba kacay meel kasta waa taa idin sheegay marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa haddii alla idmo caawana warbixinada wixii soo kordha ayaynu barnaamijkeena saddexaad ku soo qaadan doonaa meel kastoo aad joogtaan asxaabay mar kale waxaan idin leeyahay soo dhawaada nabadgelyo